روش ما كان على سيس عناية. حسنا حيسيس مركو ورا بحق سوسي سعدين مركو سيك حاجة. لا وحوا قد صار رسالة. يا ذاك الدرا واقع. أو وين أفتكروا إنه ما كنا. ورهاد بلادنا كلا جمال لك بحو. وصوتك أركينا كل سعده. تمام هو عادي. لكن سأقول قروح بدن تهبرتها الجلسة سكميد ما هبا. دب ما لها مركو روات كده ما يردب ما لها ينابتي. halkan baad joogaysaa ninow cid lama hadlaysid cidda xataa haddad kugu dhow lama hadlaysid halkan waa inaad in badan joogtaa xataa dabadda uma baxaysid albaabka ma furaysid telefoonna ma isticmaalaysid haba yaraatee waa inaad ka fogaataa dadka oo dhan daaqadaha ma furaysid waa inaad qolka dhexdiisa iska ilaalisaa meelaha daaqada iyo albaabka u dhow hadalkaygaa maqal waayo haddaan hadal u baahda ka waran ama aan dana kala yeesho waar waxba ma baahan kartid baan ku uri waxa laali waxa doonayso dhan maalin kadib baa lagu soo dhamaynayaa anna dhowrka cisho maalin baan ku soo maraya xaaladada ka warhaynaya oo ilaa inta halkan lagu jirayaa wani hadalka yaray baan ku uri xasuusnow ninkii cali loo odhan jiray wuu dhintay waar wuu dhintay baan ku uri xasuusnow nolol cusub iyo dhalasho cusub baad samaysanaysaa maanta waxay ka dambeeyaan waa inaad maskaxdaada waxaa ku haysaa waa inaad diyaargarowda hawlgalka inagu guulaysto ناتي ماركسي حالي أروسك شوكتي
toobkay xidhnayd waaw wallaahi waan ka helay haye yaa akhi hore soo noqotay warkay sitee saaxiib maxay haysaa oo soodinkii gulaha dhakhtar bay iska leeyihin waa sida haye abo maxaa jira annaga kala daaya baasha been bay noo sheegaysaa annaga ka hor halkay ku nooshay weli maad aragteen idinku haa ma garan mar kasta waan u tagaa waan soo boqdaa weliba digaag bay ku noolyiin baa kula marka meeshay geesi waxaan moodaya inay igu ciyaarayso yaa khibeen bay kuu sheegaysaa anaa filadii hosbitalka soo arkay maxaa saa u leedahay haa huna imikaan xasuustay waxay igu tidhi hooyadii iyo aabbahay way kala tegayaan markaa guriga ayadeed bay ku nool yihiin oo ma laga yaaba waxaasoo nimcaa intay ka soo carartay inay cawshada xun ka doorato nagala tag hadalka waxaan u malaynaya reerkan inay soo waasheen mudana miyaad ii yaadhay waxay joornaalka qoreen wax dadkii baa shaah lagu haysta war fadhiisaalkan dhiso waxay wax waxay warbixintay soo daabal saynisku ogan waxaan saxaafadda ku faafinay inuu calaaska dhintay waxaana la jooga waktiga ku habboonayd weliba amarkaa idinkaanad ka qaadanay weliba si hoos ahaana buu noola shaqayn doonaa ها ايه كانبل بالفروح عيالكم waxaa ku jira dad fara badan oo aan dhibaateen oo keenin ninka ugu wanaagsan ee cali shabiih kara bal kala bax iminka laga bilaabana cali wuxuu ahaanaya sirdoonkeena gaarka hoose waxoogaa yar kadib howlgal baynu maraykanka ugu diraynaa markaas diyaar gale ku dheh amshari laakiin la soco mudan ninkii keenaan la odhan jiray uu nool yahay waxaan jeclaystay inaan kuu sheego maanta saxaafaddii waxaa joornaladoo dhan ku qornaa inaad dhimatay adigu nolol cusub iyo dhalasho cusub baa weliba ku sugayaa sidaan ugu guulaysanayaa waa in nolol aan lahayn ma ku noolaan karayaa waayo in ayaa noqonaya markaa ay haarka yarayso dhalasho cusub baad yeelatee nin beri hore dhintay baad dhalashadiisa haysataa markaasaasaa dibadda ugu soo baxaysa adigu oo markaa qarsoodadu way shaqeeyaan soo maaha anigu weligii waxaan mudi jiray inay dhinteen laakiin hadda waxay cadatay inay nool yihiin marka wax walba way dhici karaan oo markaa dadkan qarsoodigaan isticmaalno dhalashadooda waa dadka dhintay soo maaha talo haa cali oo waa sidaa arrintan waa midaan ugu talagalay inaan noloshaada o dhan ku badbaadino oo waayo dadka ehelkooda mee adeer waxaa ka bax dadkaasi waa ehelkaaga maanta laga bilaabana iyagaad ka mid tahay oo markaan wax la ogaado lama baahna miya adeer looma baahna bug baad ahaanaysaa oo waayahay dadkaas hadday si dhab u dhintaan sidee baa dhalashadooda iyo waxay yihiin loo horan karayaa ii sheeg taasi ma inay adkaanayn ii sheeg markaa si xaqadooda loo ogaanaya adeer su-aalahan badan madaxay ku dawaqin doonaan maad ka bixi adeega haga dalbane cali ha ilaabin hawlahan iyo xisaabaadkani dawladda u yaalaan adeer waxba ha ka warwarin adeer intaasaa kugu filan wax walba ad ogaatay
hooyo cuntada ma doonayo anuu bardhiima macaan baan rabaa hooyo noo sameedee hooyo berri baan kuu soo iibinayaan kuu samaynayaa hooyo caawinii cun hooyo maalin kasta waxaad tiraahdaa waan idiin sameeyay haddana nooma samaysid anigu cuntada ma cunay haddaba iga daadee wax kale noo sameey allah ayaya waa idin sidee cunto waa cunto nii cuna dee tanba waa cuntee ayaya waad iga cadhaysiinaysaa dad baalaaba waxay cunaan hooyo wallaahi cuntadan aniguba waan soo nacayaa habeen kastama waxaan baan cunaynaa manana laga bedelayna hooyo iga kala daaya waxaana bili-aadamnimo ah hooyo ilaahay mahadii baa laydhaa markaad wax cunto hesho waxaad doonaysaan oo dhan waan idiin kanaa haya maxaa idinka maqan ii sheega meeshaad ka timaadeenna iska ilaawa alla hooyo waa carruura waxaa ma garanayaan ha ku qaylinin midda kale nimcadan yaraantooda hooyo carruurta waxaa lama maqashiiyo waa aabahoodan biyo ismarin mar dambena ayaa waxaan yaala ka maqlin dhegama leedahay haddaydaan doonayn waxaad cuntaana ka cadhaqsada qolkiina taga istubaran yahay hooyo goorma noloshan ka baxaynaa markaan jaamacadda tegayo 10 bas baan sii raacayaa hooyo anigu mar dambe ma tegayo waan ka daalay ma tegayo halkan iska joogaano jaamacad dambena ma tegayo weelkan iska xalanaya hooyo waxaan u xiisay alaabihii aan ku ciyaari jiray anigu waan ku baryahay noqono halka ma rabo inaan sii joogo allah maxaa iga hasta ayeeyo war balkaalay ayeeyo gabadhaydiyey carruurtu run bay sheegayaan hooyo noloshan kuma noolaan karaan waa inaad gurigoodii u celisaa hooyo ubadkan markaad dhashay malqaacadda habaad wax ku siin jirtay iska daa hooyo madaxadaygan oo gurigaagii u laabo naftaadana ha dhibin ubadkaagana hooyo ha dhibin hooyo maamun waa ninkaaga waa inaad u adkaysatid ubadkaagana hooyo niyad jabkiyo silica ka ilaali hooyo mushaarkan yareed qaadatid laba ubada kuma korin kartid ha isdhibin hooyo go-aankan aniga qaatay carruurtayda habeen iyo maalin waan u shaqaynayaa si aan u karsado hooyo waxaan isleeyahay xisaabiyaa beritoola lacag ka doono maamuun iyo habartii dhashay intay nolosheedii gumaysteen dib iima gumaysanayaan aniga weliba awoodiyo kartidan leeya waxaan doonayaa si fiican inaan u tuso xaqata sidayna dhacdo may ahayn laakiin waa bal waan kaaga soo argudaya anigu waa ku baryaa runta ii sheeg adigu ma qasal baa tahay adigu ma tahay suusuudii aan yaraatay kala lunnay haye haddii ay ahaatahay waan ku baryaa indhaha isku xidh mar keliya aan ku gartee haddii aanad ahayna 2 jeer indhaha isku qaba kadib fur kuma rumaysanaya anigu mar kalean kuugu celinayaa adigu ma qasal baa tahay maya oo qasabatiid miya
waayo maxaad beenta igu sheegtay adigu haye sidaa kaa dalbaday markaa maahirkii baa sidaa kaa dalbaday soo maaha oo markaa sirdoon baad ahayd amarkiisa aad ku shaqaynaysa soo maaha maxaad saa u samaysay maahirow maxaad saa u samaysay nacasow way noo taha kuu soo socdaa adigii baa ka faa'iidaysanaysa soo maa xasuustaydaad raadinayay waa wixii nolosha igu qaalisanaa hadda inta ka faa'iidaysatay ayaad xusuusaygii beer ka laagaysa soo maaha way noo tahay adna waad raacday soo maa haye maxaad iga doonaysaa ii sheeg maxaad iga doonaysaan aniga qabanaysaa waxa weeyaan qolkaaga inaad ku nasto jiifto hadii kala meesha ku damqanaysaa waxa ma qasab baa sheegay hay'adi maxaa kaasiya maxaa ku dhacay sheeg warar baa sheegay imkeen oo cali dhintay cali maxaa ku dhacay ii sheeg waa halku qabtay hadalkaasi marunba ma dhici karto cali waa wada joognay isagoo daba socdintu noqdin buu igu yiri mar kale sarki doonaa sidaasuu igaga tegey wuxuu igu lahaa waa ku soo helayaa wuxuu igu lahaa waa soo helayaa hadday sidaa tahay wuu dhintay magaaladoo dhan baa sheegaysa inuu dhintay waxbaa anigaa wax walba soo ogaanaya lagama yaabo dhayal inuu ku daayo anaa wax walba soo ogaanaya iska daa allah tolo waa 8 muxuu la habsaamay inankii imse jeer un baan diirinayaa cuntada wararka caawna soo gaadhay waxaa ka mid ah dabley hubaysan ayaa weerar ku soo qaaday askariga la yidhaahda cali taasi weliba dhaawac gaadhsiiyeen dableydaa hubaysani oo weliba islamarkaa loola cararay dhinaca isbitaalka weliba booliisku waxay ku dhaqaaqeen baadhitaan dheer oy weliba ku daba taagan yihiin dadkii u hanjabay cali asqo islamarkaana haddii lagu helo dembiga lagu soo oogay waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan waxa arrinkaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliska iyadoo weliba gacanta ka xaq daranayday si aan laga hadhi doonin oo maxkamadda weliba la hortaagi doono dadkii dembigaa galay waxaanu weliba taliyuhu tacsi u dirayaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka dhintay marxuun cali waxaanu marxuunkaasi ahaa mid dadkiisa iyo dalkiisaba daacad u ah ilaahay ha u naxariisto waarmadigiiba xarakaadka la socda anigu dareenkayga aad buu shaqeeyo soo jeedaa hay soo soco hay xilligan maxaa ku keenay kulli waxaan ku arkaya inaad hawl muhiim u socotee
been baad ii sheegtay war kuma fahmin war kaale gabadhaan qasal intaad ii keentay maxaad beenta iigu sheegtad u tiri waa qasal iishaadan kula hadlayaa waa asalba haddii aad xaqiiqada dhabtaa ogaatay war sababtan adigaa lahaa waa inaad ogaataa sababtan waxaan u sameeyey arnoo sheeg maxaad sidaa u samaysay maxaad u samaysay war maxaad sidaa u samaysay noloshaydii hore iyo xasuustaydii maxaad been uga daba keentay adaan kula hadlaya ii sheegaya cunaa ku kala saaraya waxaa kuu kalifay war niyo waxaan adiga dartaa baan u sameeyey war sababtan adigaa lahaa muddooyinkii u dambeeyey waa isku dhex yaacday oo noloshaadii hore intaad daba gasho maa shaqadii lagu diray baad ilowday taasina waxay ka hor imanaysaa hawlaha iyo shaqadaynu ku guda jirno waa niyo jacaylkaa ku jirciya digada kaa dhigay ayaa hawlihii dibidhac ku keenay markaasaa inta digar waysatay beentaad u samaysay soo maaha xataa adigoo niyadda gelin maalin sheekada la ogaan doona fashilmi doon taasaa samaysay soo maaha asmaro shaqadeennaa noocaasa maxayn samaynaa waxa la ogaanaya waxba nagama gelin hadhow laakiin waxaa muhiima hawsha sa u soconaysa laakiinse sheekadani jacayl ba la xidhiidhaa jacaylkuna dadka wuu jilciyaa markaa sidaa awgeed waxaad ku dhawaatay inaad fashilanto maskaxda aad la kaashatay weliba saa doontaad u dhaqantay hawlihii lagu diro o dhan waad ku guuldarraysatay kadibna adigaaba ka qoomameeyey waxa taa keenay mataqaanaa asmarow waa noloshaadii hore daba socoto taasina aniga wax faa'iidaayay ma laha oo gabadh nolosheedana dan kama lihid miya nolosha dadka ma halis baad gelinaysaa ayr aniga la qabso danteedu waa hawlgalka war adiga iyo qasar iyo tu kala toon anigu waxba igamay gelin dantaydu waa muhiimaddaan doonaya inaan gaadho bes haye waxaad doonaysa inaad disho igu dhufo dee ar maxaad la gelinaysa dee nagu dhufo haye igu dhamee qasnada kugu jirta basolada war jacaylka awgii u dagaalana qasnada kugu jirta basolada igu dhamee socode haye dil daad iga nasatee waar dil ninkii kusoo koriyo kusoo barbaariyey weliba haye waxaa kushidayaa kaa baqteen ina dil na dilda maxaad qabanaysaa haye adiga ayaa dhabarkayga jebiyey noloshayda weliga beenkuubaa sheeg run baan kuu sheegayey adiga ay baabiiyey mustaqbalkaygii baad baabiisay noloshaydii hore xasuustaydii baad baabiisay adigaa dila ilmahaad soo korisay weliba qalbiga ayaad ka dhaawacday adigaa nolosheeda baabiiyey oo been ii sheegay weliba adigaa dilay anigu kuguma kalsooniyey hawlgalkaaga iyo hawlahaad waddo waxba kuma kalsooniyey anigu waan kaa kalsooni baxay ma doonayo mar dambe ina hortaada imaado aniga ku soo korsaday asmarow laakiin si inaan abeeso korsadaan arkaa